السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن اخترتا هودا نغلا xidhiidha meel kastoo aad joogtaan maanta oo 26 Juun ay tahay waa maalinka xorriyadda ay qaadatay gobolka waqooyi ee Soomaaliya halkaas oo ay ku midoobeen haddana kowda Luulyo ay Soomaaliya dhanba ay ku midowdo ay isku raacday xalay waxaa loo dabaaldegayay koonfurta iyo waqooyiga meel kastoo ay joogaan waxaa loo dabaaldegayay 26 Juun iyo xornimadii ay ka qaateen Britishka ee gumeystaha ahaa xalay Somaliland waxaa ka dhacay dabaaldeg aad u xoog badan iyadoo Muuse Biixi la sheegaya in uu ka hadlay wada hadalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iyadana xalay magaalada Muqdisho aad looga riyaaqay looga dabaaldegay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xanuunka COVID-19 dartii aan kasoo qayb galin xafladda xalay laga dabaaldegay magaalada Muqdisho halkan wakiil uu ogaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo codkiisa ku hadlayay aadna ayuu u fiican yahay madaxweynuhu warkeena waxaa faahfaahin doona ishana ku haya saaxiibkay Cabdi ila jooga ila falanqeynaya Cabdi waxaalay de Soomaaliya meel joogtaba riyaaq iyo boodbooditaan iyo maxaan ku dhahaa ismaxabayn ayaa ka socday xilliga ay gumeystaha Britishku oo ka qaatay gobolada waqooyi ee xalay loo dabaaldegayay bisha soo socota kowgeedana waa dhammaan Soomaaliya dhamma wada dabaaldegaysa Somaliland inkastoo ayagu ay iska dhigaan gooni istaag dowlad geesa laakiinse wali waxaan ayidsanahay inay isku dowlad ay yihiin ayaga Soomaali iyo Somaliland ba hal dowlad ay yihiin inkastoo ayagu de xogow ay aftaaga ku jiraan ka waran xalay Muuse Biixi muxuu ka dhahay wada hadalka Soomaaliya sooda walaa horta maada waa mahadsantahay marka hore waxaan leenahay balyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 26 Juun waaye maanta marka xornimada iyo dabaaldegyada meel walba ay ka socdaan adduunka kamid ah wadamada America Europe iyo meel walba ay ka socdaan Africa Soomaaliya Muqdisho iyo Hargeysa iyo meel walba iyo Addis Ababa meel walba Soomaalida joogta adduunka ay ka socdaan marka hambalyo ayaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka Muuse Biixi Cabdi xalay xafladda uu ka qayb galay wuxuuna aad uga hadlay xafladda iyo hambalyada ka bacdi wuxuu ka hadlay wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland wuxuuna dhahay madaxweynaha hadda soo laabtay Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu mar loo dib ugu soo laabtay xogaalna uu ka yahay wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waxaan ishaga rajeynaynaa inay naga soo garbaxaan wixii aan qaladaad ahayna aan dhahan mar walba ay ku celceliyeen af macaanida ay daldalayaan waa inay wuxuu dhahay cadeyn u keenaan si toos ah nooga garbaxaan laakiin wuxuu dhahay anaga qadiyadeena iyo xornimadeena iyo gooni istaageena wali waa sidiisii laakiin wuxuu dhahay in horta marka hore wada hadalna ka horeyso wada hadalkana waa sii wadeynaa diyaar ayaan u nahay marka wuxuu dhahay hanaga soo garbaxaan Soomaaliya dhibka jirana ha laga gudbo laakiin wuxuu dhahay qadiyadeena wali waa sideedii mahadow Cabdi Soomaaliland horta maxay tirsanaysaa waxaan ognahay Soomaaliya burburkii markuu u dhacay qabiil baa la isku laayay waa la isbaabiyay qolo u turtay male waa la iswada cunay ilaa cunitaanka ilaa xilligan buu socdaa uu isku bedelay ururo iyo argagixisyo balaayo isku bedelay waa la iscunaa oo koonfurta ka socda Somaliland meel aan la burburin oo la baabinin ma jirto waxay leeyihiin hana la raali geliyo maxaa laga raali gelinayaa walaa horta raali geliska horta waxay leeyihiin horta dowladda siyaad barra ay aad wax ugu tabanayaan inay dhameysay oo macnaha Somaliland aad u dhameysay gobolada waqooyi dagaal badan ku qaaday marka taas ay ka tabanayaan aad iyo aad ugu tabanayaan laakiin intii hore way mideysnaayeen dowladda inta jirtana way mideysnaayeen laakiin burburkii ka bacdi ayagoo weli ceel qaba ayaa burburkii dhacay 1991 waxay dhaheen anaga waan ka go'nay Soomaaliya inteeda kale awalna anaga la midownay haddana waan ka go'nay marka gooni ay isu taageen ay isasay dhaheen marka Soomaaliya markii wixii ka dambeeyay waxa ka dhacay burbur iyo dagaalo kala sokeeya ka dhacay wax isii daba galay iyo raacay kale ma jirin isku soo dhawaasho kale ma jirin wada hadal dhowr mar la qabtana waa lagu guuleysan waayay laakiin hadda waxay leeyihiin ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan wada hadalno laakiin waxay leeyihiin waxaan ka wada hadlayno waa inaan qadiyadeena aan helnaa Somaliland ishagu waa in la sii daayo ay xor noqdaan saas ay tahay marka laakiin horta marka hore waa inaan ka wada hadalnaa ay leeyihiin oo miiska wada hadalka fariisana wixii qalad aan tabanayna nagala soo garbaxo garbixida iyo af macaanida maalmo la sheegayna waxaan rabnaa in miiska wada hadalka la keeno Xasan Maxamuudna waxay dhaheen waa nin aad iyo aad u dadaal badan ninkaas odagana waa soo dhaweynayna waana qadarinayna leeyihiin maado okay haddaan dhinacaya aan u leexano ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mar dhow codka kalsoonida la siiyay waxa la sheegayaa in uu golihiisa wasiirada ah oo 26 dhanaa in uu badin doono oo uu ku soo dari doono afar wasiiro kale ay 30 wasiir ay gaari doonaan maxaad kala socotaa arrimahaas والله أيضا نفتكر ذو حاول هرت سيد الشجع واسح وحليه هاي
xamse cabdi barre wada tashiyo fara badan ayuu ku jiraa, wuxuuna doonayaa in sheega wasiirada soomaaliya wax laga bedelo maadaama 26 wasiir ay ahaan jira 4 wasiir lagu daro, marka wadahadalku wuu socdaa, laakiin haddii 4 wasiir lagu soo daro miisaaniyadda dalka ayaa sare u kacayso, dhaqaale fara badan ayaa sii baxayo, wax gooniyo soo kordhaya malahan. Laakiin dadka waxaa leeyahay waa in beelaha soomaalida la qanciyo, 30 sano lasoo dhaafan waxaa lagu jira in beel la qanciyo, mar walba qolaa cabaadayso dhehayso annaga waxbana lama siinin, waa nagala tegey, waana la xaqdareeyey. laakiin waxaa leeyahay ballanqaadi fara badan ee dowladda soomaaliya u sameysay, xasan sheekh maxamuud dowladdiisa u sameysay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ay dhaheen wasiiro fara badan ayaa siin doonaa. Marka waxaa la rajeynayaa inay 60 wasiir meesha isugu imaado, 30 wasiir iyo 30 ku-xigeen in meesha ay isugu imaadaan wasiir dooliyaal. waxaa la rajeynaya adigu ugu yaraan 90 wasiir wax ugu dhow oo ku-xigeenada iyo wasiir dooliyaasha marka la isku daro waxay noqon doonaan 90 wasiir. marka wadan burbur san oo awoodna aan lahayn soomaaliya inta ay ka taliyaan aan dareemi karno. magaalada muqdisho haddii laga baxana maamul goboleedyo ayay hoos tagaan, magaalada muqdisho iyo aageeda haddii maanta la dhaho 90 wasiir ayaa ka shaqeynayso, culeyskeeda ayay leeyihiin, qarashaadka iyo dhaqaalaha faraha badan oo ku baxayn waa dareemi kartaa, wadankiina awaaro fara badan ayaa ka jiro. marka waxaa leeyahay ilaahay soomaaliya xaalkeeda hagaajiyo, laakiin culeyska wuu sii badanayaa haddii wasiirada la kordhiyin waxaa wax gooniyo hadda soo kordhaya lama ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xafladii xalay ka socotay magaalada muqdisho kama uunsa soo qeybgelin xanuunka covid-19 daraadii, wuxuuna sheegay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe in uu asaga oo afkiisa iyo afka madaxweynaha labaduba ku hadlahayo inuu madaxweynaha hambalyo shacabka soomaaliyeed uu ooga sido, afka madaxweynahana uu ku hadlahayo, madaxweynuhuna uu ummadiisa shacabka uu u turahayo inuu dhex imaado oo covid-19 oo aad si dhow lagu kala qaado in laga yaabo in hadduu halkaa u imaado inay shacab badan ay qaadan. saas darteed madaxweyne isagu wuu fiican yahay, laakiin wuxuu ka baqay inay dhibaato ay soo gaadho dadka shacabka, saasu ayuuna ooga baaqday. ayadana maxaad kala socotaa? wallahi horta madaxweynaha waxaa leeyahay sidii hore ma ahin, xaaladiisa way soo hagaagaysaa, laakiin maadaama cudurka uu hayo oo waqti dhowna laga helay inuu kusoo degdego sheega xafladaha iyo meelaha dowladda isugu imaada ayuu diidayaa. marka uu soo diray hambalyada meeshiisa ayuu kasoo diray, wuxuuna soo wakiishay sheekh aadan madoobe, maxaa la dhahaa sida kalena uu beejkiisa kusoo hambalyeeyey. marka waxaa leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud caafimaadkiisa 100% hadda wuu soo hagaagaya, hambalyadana waxaa waaye wuxuu kaga qayb qaatay sheega qadka telefoonka iyo beejkiisa iyo twitterka intaba uu soo dhigay. sheekh aadan madoobena inuu wakiilka ahayo madaxweynaha ayuu halkaas hadal ka jeediyey. marka waxaa leeyahay hadda waxaa la gudageli doona hadda wixii ka dambeeyo waa magacaabista golaha wasiirada iyo xubnaha dowladda ka dhiman. marka shaqo adag ayaa u taal hadda dowladda soomaaliya, waxaan rajeynaynaa in meel fiican ku dhamaato, wasiirada soomaaliyana mar dhow lagu dhawaaqo. marka hadda waxaa leeyahay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ballanqaadyo fara badan lala galay ayaa waxaa laga cabsanaya markii wasiirada lagu dhawaaqo inay qayle iyo bilaabaan sidii lagu yaqaanay, gadood fara badanna ay sameeyaan. mooshinadii iyo wixii la sheegayana waxaa leeyahay madaxa mooshinada ayaa meesha jooga sheekh aadan madoobe, waa dowladdii ugu mooshin ka badneed waqtigii asaga rasaaraha ahaa, marka waqtigii asaga ahaa gudoomiyaha baarlamaanka. marka waxaa leeyahay waa nin mooshinka ku dheereey, waxaa laga baqaya in mooshinno fara badan ay soomaaliya ka dhacaan, laakiin waxaan ka war dhowrnaa waa wasiirada faraha badan ee la magacaabi doono mahadow. okay, kaasi waxaa saaxiibkii cabdi badana waa falanqeeya arrimaha soomaaliya kheerta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan, saas iyo kulanti dambe oo wacan wanaagsan.